إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون madil qorshaysan ayaa lagu dilay taliya Sulnuug waxaan halkan kula wadaagayaa sargaal ka tirsan ciidanka macawisleyda gobolka Mudug oo faahfaahinaya sida loo dilay taliya Sulnuug iyo xabadaha ku dhacay taliyaha halka ay kaga dhaceen daawade muuqaalkan ayaan kula wadaagaynaa xogahaasi oo dhameystiran marka hore waxaan ka codsanaynaa inaad muuqaalka share gareysaan oo meel fogaad gaarsiisaan haddii ay tahay markii kugu horreysay oo soo booqatay channelka Haldoorna aad subscribe tiraadid gambaleelkana furatid si mar walba aad u heshid xogihii ugu dambeeyay ka dhaca gobolada dalka Soomaaliya taliye soo dhawow bal waxaad inoo faahfaahisaa geerida ku timid taliya Sulnuug iyo halka uu ku dhintay إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون walaalow maanta waxaa ummadda Soomaaliyeed ka baxay geesi weyn geesi qaran oo ahaa taliyii ciidanka guutada 18aad taliya Sulnuug oo ahaa shaqsigii ugu saameynta badnaa markii loo eego dagaalka aan kula jirno argagixisada xilli dowladda sidoo hore aysan dagaalka aysan ugu jirin oo ciidamada yar oo kuwa dowladda iyo kuwa deegaanka aan nahay waxa uuna ku dhintay saaka dagaalka foolka foolka ah oo argagixisadu si gaadma ah ay noogu soo qaadeen halka ayuuna maanta ku geeriyooday meydkiisa iyo aaskiisa arrintiisa ayaa hadda ku jirnaa waxaana noqotay dhacdo argagax leh oo dadkii dhammaan deegaanka iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada ay la anfariireen in maanta uu taliyo geeriyoodo xilli dagaal xoogan uu socdo welina nimankii ayna kor fadhiyaan waa gartay taliyaha waxaa la sheegay in dagaalka oo uu dagaalgeliyo guud ahaa oo ku howlanaa sida iskaga difaaci lahaydeen weerarka khawaarijta marka halkee xabadu kaga dhacday maadaama uu dagaalka furinta hore uu ku jiro taliyo taliyo horta marka hore wuxuu ahaa taliya ciidanka 18aad military qayb ka tirsanaa guutada 18aad oo ahaa wuxuu sidoo kale ahaa banduule ciidan dagaalka markii lagu jirana waa uu ka doonaa taliyaasha kale ciidanka ee ka tirsan qaybaha kala duwan ee ciidamada ee dagaalka si toos ah ayuu xabad ugu jiray dagaalkii saakay lagu soo qaaday deegaanka jeexjeexa oo asbuucan oo dhan dagaal ka socday wuxuu ahaa dagaal ka duwan kuwii hore oo ahaa dagaal cagmarin ah oo la rabay ciidamada macawisleyda iyo sidoo kale kuwa militariga ee halkaas ku sugan in saaka argagixisadu ay laayaan dagaalku waxa uu kusoo bilowday qaraxyo waxa uu socday muddo saacado ah waxaan jibinay kooxdii argagixisada ahaa ee weerarka soo qaaday annagoo bacsigooda ku jirna ayay meel god ah ama qalow ah oo dhagax ka samaysan ayay u daateen kuwana waa farxadeen intii lagu jiray in markaasi laga saaro godka ayaa waxa dhacday godku waa meel sare ayaguna qaybta sare ayaan saarneen ayaguna godkii ku jiraan xabada ka soo ridayeen maadaama meesha meel aad la iska arki karin ay tahay taliyo waxa uu ku jiray saraakiishii iyo madaxdii xabada si tooska ugu jiray oo ciidanka hageysay oo weli meesha ay ku jireen nimanka taagneed xabad la soo tuuray ayaa ka haleeshay dhinaca wadnaha waxa uuna markaasi ku ruux baxay isla goobta markii hore dhaawac ayaan u moodnay waana la soo qaaday gudaha magaalada ayaa la keenay maadaama xabadu la iskala baxay magaalada oo banaanka magaalada ay ka socotay kadibna isla goobta ayuu ku geeriyooday Allah u naxariistee waana kulley shakhsi aan dareemayo in geediisa iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay wada saameyn doonto hadduu Ilaahay yiraahdo waa gartay saraakiishii macawisleyda ayaad ka mid tahay in badanna dagaal la gala taliya Sulnuuge ka macawisley ahaan dareen intee la eg ayay in ku reebtay markii aad aragteen geerida taliya Sulnuuge wallahi ka macawisley ahaan ilma aabbood la dilay waxa ma dhaano marka la fiiriyo xilligii la soo magacaabay xilligii naloo keenay marxaladda aan ku jirnay iyo hadda midaan ku jirno mataqaanaa ismalahan adiga waxaa kugu filan jawaab iyo war in yacni isagoo madaxweynihii ka maqan goobihii dagaalka uu sidoo hore u soconin haddana gobolka in dagaalka uu ka socdo weliba maalinba deegaan cusub la qabsanayo asbuucaana deegaanka inuu ka socdo dagaal xoogan oo u dhexeeya argagixisada iyo sidoo kale annaga iyo ciidanka dowladda waa dareemi kartaa shaqsigii suuragelinayay iyo sidoo kale inaan difaacano dhulkeena oo aan wax deegaan nagala qabsan annagu inaan deegaan qabsano maahan taas waxay ku tusinaysaa awoodda iyo shakhsiyadda uu lahaa iyo sidoo kale sida uu ugu howlanaa ama ugu helanaa in howlihiisa iyo waajibaadkiisa uu guto teeda kale macawisleyda waxay soo martay marxalado kala duwan hadday tahay dhanka taageerada hubka qarashaadka iyo saanada military ee u bahnaayeen waxa uu ahaa shakhsi ka saameyn badan saraakiishii iyo xitaa wasiiradii hore oo kamid yahay wasiirka gaashaandhigga
oo in badan ballanqaad u sameeyey macawisleyda taliyuhu wuxuu u sameeyey nidaam, wuxuu u sameeyey qarashaad, waxa uu siiyey hub uu ku kontroolayo halka ay la aadayaan iyo qaabka ay u maangaranayaan. waxa uu u sameeyey saraakiil kamid macawisleyda oo lagala soo xiriiro haddii uu dhaco shaqaaqo ama dhib dhaco. si gooni ah ayaana control lagu hayay macawisleyda. waxaa loo sameeyey fariisimo kuwa militariga oo kale ah, waxa ayna markaasi ciidanka militariga ka caawin jireen in dagaalka ay horboodaan oo goobaha ay degan yihiin argagixisada ay ciidanka geeyaan. marka kolley shakhsi muhiim noo ah ayuu ahaa. wax hadda aan sheekadiisa halkan kusoo koobi karno iyo muhiimadiisa ma, laakiin si ka badan sida ummadda Soomaaliyeed ay u dareentay ayaan u dareemaynaa. dhibkaasna mataqaanaa waxaan la qaybsanaynaa shacabka Soomaaliyeed. waa gartay. intaasi waa wanaagii iyo dhaqankii aad ku aragteen. markii la soo magacaabay taliyahani, sidaan ogsoonaa deegaano fara badan oo ka tirsan gobolka Mudug ayaad gacanta ku dhigteen, qaybna ayuu ka ahaa. marka geeridiisa ku aadan maanta oo Allah subxaanahu wa tacaala oofsaday, ma laga yaabaa in howlgalkiinii hoos u dhac ku yimaado ku aadan dhanka la dagaalanka khawaarijta? horta wixii dhacay Ilaah baa og, wixii qoran idin baajin karto, laakiin wax kasta waxay ku dhacayaan xukunka Ilaahay. macawisley shalana taliyaha koow waajeen waana dagaalamayeen. dowladda ayaa meesha noogu imaatay, haddii ay naga tagaan waa dagaalami doonaa intii gabar nooshahay haddii Ilaah yiraahdo. laakiin waxaan rajaynaynaa in dowladdu ay noo keento bedelka taliye Sulnuug oo shakhsi kale oo isaga u dhigma. dabcan u maleemayno nin booskiisa buuxin kara inuu jiro, laakiin at least qof soo dhaweyn kara xitaa inay noo keenaan, si marka dagaalkeenii iyo in deegaanadeena aan xoreysano aan u sii wadno hadduu Ilaah yiraahdo. gobolka Mudug koonfurtiisa inta badan argagixisada waa laga sifeeyey, goobo yaray ku dhumaalaysanayaan. iyadana haddii Ilaahay iidankeeda leeyahay saacadaha, maalmaha, asbuucyada soo socda waxaan rajaynaynaa inaan soo afjarno, aan deegaanadaasi dul istaagno, dadka shacabka halkaas ku dhibaataysanna aan ka saarno. marka haddii taliyuhu dhintay, booskiisa qof kale ayaan rajaynayaa in la keeno, shaqadina aan la sii hagaajino. waa gartay. dabcan saameyn xooggan ku yeelan doonta. waa gartay. deegaankii Jexjeexa hadda dagaalkii ka socday halkee ku dambeeyey? maxaase khasaaraha oo adinka maanta idin soo gaaray? meel dagaal haddii uu ka dhaca cid aan khasaare gaarin ma lahan. khasaare annaga waxaa noogu filan taliyaha gelidiisa. wixii kaloo khasaaro annagana soo gaara waa yaraayeen. dagaalka saaka dagaal ayagu soo qaadeen oo ahaa argagixisada ay qaraxyo kusoo bilaabeen. waana la iska difaacay, waana la ceyriyey, waana la jebiyey. laakiin sida xaqiiqada waxay tahay in aysan jirin meel fog oo ay weliba dhufiisyo ka samaysteen banaanka magaalada. ciidankuna ay hor joogaan, saraakiisha haddii aanan ahaan qaarkeen ay joogaan jiidda, kuwani kalena ay ku jiraan duugtii iyo sidoo kale ama qaabidii sidii meydka loogu qaadi lahaa magaalada Dhuusamareeb, kadibna loogu sii qaadi lahaa magaalada Muqdisho si halkaasi loogu aaso. waa gartay. ugu dambeyntii, adiga maadaama aad sargaal tahay, aqoonta aad u lahayd taliya Sulnuuge oo aad ku xasuusan doontid maxay tahay? wallaahi taliya Sulnuuge intii aan wada shaqeynayna un baan isnaqaanay. waxayna u dhigantaa kolley waa sanad waxa ku dhow. waxayna u dhigtaa inaan isnaqaanay 20 ama 30 sano oo kale. sida aan wada shaqeynaynay ama wax wada qaybsanaynay xogaha iyo informationada iyo macluumaadkaana soo wadaagaynay. waxa kaliya oo saaka aan ku xasuusan karo waxay tahay inuu ahaa howlkar wadani ah, geesi ay ka go'an tahay in howlihii loo soo ogmaday oo u qabto si ka badan sidii loogu talagalay. dadaalkiisuna oo ahaa mid muuqda. dadkii deegaanka iyo dadkii soo wada shaqeeyeen un baana dareemi kara. ehelkiisa iyo asxaabtii iyo saraakiishii ciidamada saaxiibada la ahaa iyo sida qaranka Soomaaliyeed waan u tacsiyinayaa dhibka xooggan ee soo gaaray. insha Allah waana loo aari doonaa saacadaha soo socda hadduu Ilaahay yiraahdo. keenimino argagixisada nin isaga u dhigma, balse raggooda ugu muhiimsan iyaga xaggooda ayaan ka naafay doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo.